بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدib kusoo dhawaada kanaalka Somali Science. Muuqaalkan waxaan kusoo qaadan doonaa wax ku saabsan cilmiga sayniska. Marka hore, waa maxay science? Science waa barashada adduunka dabiiciga ah iyadoo la isticmaalayo tijaabo ama sababayn logic ah. Scientist waxaa jira macnooyin fara badan, laakiin midda ugu macquulsan waa qof kaasoo weydiinaya su'aalo wuxuuna isku dayayaa in uu siyaabo kala duwan uga jawaabo su'aalahaas. Markii ugu horeysay ee la maqlo ereyga scientist waxay ahayd 1834. Marka laga hadlayo noocyooyinka ama typeska science-ka, waxaa ugu muhiimsan physical science, earth science, life science, chemistry, mathematics, physics iyo astronomy iyo kuwo kaloo fara badan. Saynisyahanada ugu caansan waxaa ka mid ah Albert Einstein, Isaac Newton, Marie Curie, Galileo Galilei. Gabadha ugu horeysa ee saynisyahan ee ku guuleysatay jaayizada ama abaalmarinta Nobel Prize, Marie Curie, waxay qaadatay 2 Nobel Prize sanad markuu 1903 ay ku qaadatay physics. sanad markuu 1911 waxay ku qaadatay chemistry. Galileo Galilei waxay dhahaan waa aabaha sayniska. Waxaa hore u soo sheegnay noocyooyin fara badan ee sayniska, laakiin sayniskii ugu horeeyay waa astronomy.